السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلكسو دوادا برنامج كيغا شبعان شو oo aan maanta marti u yahay Cabdiraxmaan Saleebaan oo ahaan jiray ciyaartoy u soo ciyaaray wadanka Qatar isla markaasina qaranka Qatar u soo ciyaaray markii dambena u gudbay qaaradda Asia waa ciyaaryahankii Soomaaliyeed ee 1998kii 2002 ilaa 2004 ilaa 6kii ciyaarayay waxaana ay wada tashi iyo khabiir isla lahaayeen ciyaartoydii Soomaaliyeed Cabdi Cabdi iyo kuwi kale waxaana aan wareysigan aan kaga qaadayna waxa weeye muhiimadda uu leeyahay sportska ama ciyaaraha iyo in qof loo diidin inuu garoonka galo isla markaasina mahmaha uu soo qaateen waxay ka mid ahayd dhakhtar qofkii patientka ama caafimaadka doonayay uu dawadii uu ku daawoobi lahaa u diiday ay ka dhigan tahay koox loo diiday barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa Cabdiraxmaan Saleebaan ayaan idin gudbin doonaa wareysigiisa qiimaha badan aynu idin kala dhex bixi doonaa daawasho waa Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh akhyaarta meel kasta oo kulida ka joogtaan kusoo dhawaada maanta waxaan martinaa Cabdiraxmaan Saleebaan oo ah khabiir ciyaaraha technical wadamada badan oo Cabdiraxmaan Saleebaan horta kuma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما صنتها ولا ورتانيجو عبد الرحمن سليمان وحوي وأنا صوماليا وضك قدرنا بدو إلى 18 سنة قرن قدر عياري دينا سبورتسكا عيارها فضود بالضبط بدنا محوها دينا إيش يدون كما كسوقاتي يدون كمران كقاتي بلاد اللباد يو حاجتي مران بلاد برونز كما كقاتي عياري لوكال قبني من الوقت جامايكا من الوقت هنغري waxaa kaloo ii dheer ciyaaraha Asia oo aan wadanka Qatar ku metelay aan wadani Soomaaliya wadanka Qatar ku metelay aan qaaradda Asia ilaa muddo 4 jeer aan muxuu haayay aan ka qaatay balada dahabka anigoo wadanka Qatar metelay waxa tahay mas'uul soo noqday ciyaaryahan wadanka Qatar u metelay bilada badan loo qaaday qaaradda Asia soo metelay haddana khabiir dhanka sportska technicalka gaar ahaan hadda Imaaraadkana u qaabilsan dhanka technicalka sportska dhawaana afar shaqo ka qayb galay shirkii Philippines ka dhacay oo aad khudbada West Asia soo jeedisay marka inta ka tagno ujeedada shirkaaga jiray wuxuu ku salaysan waa ma santahay walaalow shirkaygan horta jira wasaarada ku dhigtay wadamo badan baan horta markaan ciyaartoynimada markaan ka tagay aan haddana ka soo noqday macallin oo coachnimo ka soo noqday oo magaranaysa wadamadaas ay Afrika iyo Asia ba ah ilaa iyo markii dambe aan noqday maamule oo technical director oo de magaranaysa intii ugu dambeysay wadamada khaliijka aan ka ahaa oo wadamo badan aan u soo noqday technical director marka inaanu uga faa'iideeyo run ahaantii shuruucda haddana sabab hadalka carabka ugu dhuftayba xalay baan ka soo galay wadanka Philippines oo shirkii qaaradda Asia aan uga soo qayb galay oo ajendadii iyo muxuu ahaa istaraatiijiyadii muxuu ahaa sportska ku saabsanaana muxuu ahaa ka jeedinayay iyo shirar badan oo ka qayb galay ciyaar shirarka adduunka ugu dambeeyay Budapest iyo shirka ka horeeyay muxuu ahaa asaguna Serbia ka dhacay ee Europe marka qaaradaha oo dhan Europe iyo Asia iyo adduunka ba shirarkaas waan ka soo qayb galay marka waxaan doonayaa inaan xoogaa yar tibaaxo ahamiyadda uu leeyahay sportsku iyo qiimaha iyo shuruucdiisa horta ahamiyadda uu leeyahay sportsku waxa weeye horta waxyaalo badan buu sababa horta waa isdhexgal bulsho bulshooyinka run ahaantii waxyaalo badan oo fawaaxisha oo hadday noqoto qabiil hadday noqoto fusuq hadday noqoto daroogo noqoto waxyaalo badan horta dhalinyarada uu ka leexiyaa uu ka duwaa ama hadday dhalinyaro noqoto ama hadday dadka waaweyn noqotaba marka sportsku horta fawaa'idka fara badan buu leeyahay run ahaantii bariyaha dambana waxa igu soo dhacaysay dad badan oo muxuu ahaayay garansa Soomaaliya oo garansa ama anigu horta niyow saxaafadda aad ugu badni run ahaantii oo nin saxaafadeed iyo nin siyaasina ma yihi laakiin waxaan jecelahay inaan bulshooyinka aan uga faa'iideeyo waxyaalaha garansa nuxurka u leh dadkuna ay garansa aqli ahaan uga faa'iideysan karaan wuxuu yahay niyow waxaa jirta sideedaba sportska imanka waxaan ku misaalay mar haddii oo jira ugu soo dhaadhaceen waxaa jira dad wuxuu ahaayay loo diiday ciyaaro inay ka qayb galaan waxaan ku misaalay oo kale qof xanuunsanaya oo dhakhtar u yimi dhakhtarkii markuu u yimi oo dhakhtarkuna uu dawadiisa hayo oo ku yiri ku daaweyn maayay iska tag marka taas waxa weeye ay noqonaysaa inuu dhakhtarkaasi
uusan adiga kaliya kula dagaalamayn oo la dagaalamayo bulshooyinka magarasa bini'aadnimada oo la dagaalamayo marka asagoo dawadii haya oo adigoo xanuunsanayo dhakhtarkii uu yimid dawadii haya oo dawadii adigoo ugu siin karaya tiri ku siin maayo waxa weeye qofkaas inaad dishay waxa weeye barto ayuu la mid yahay sida aad hadalka ku dhufatayna waxa weeye waan la soo shaqeeyay run ahaantii anigu horta nin Soomaaliyan ahay Soomaalinimada jecel waddankiisa jecel mar walbana muxaafid oo magarasa wuxuu ahay dawladaha yimaada iyo madaxda timaadaba mar walba la shaqeeyo magarasa muwaadin Soomaaliyeed baan ahay waagii xitaa uu joogay madaxweyne Farmaajo waan oo halka waliba lagu soo magacaabay magarasa advisor oo la taliya de wixii marka anigoo waliba jeebkayga maalin dadku waxa laga yaabaa in Soomaaliya marka ay maqlaan halkaas qofku inuu isagu dam garanaysaa inuu dadka ay u shaqo tagaan Soomaaliya laakiin anigoo jeebkayga anigu maalaya baan doonayay aan jeclaystay inaan bulshadayda iyo Soomaalinimadeeda aan uga faa'iido waxaan soo bartay inaan bulshadayda aan dib ugu laabto de wixii aan garanayo aan ku dhaamo inaan magaranaysaa aan uga faa'iideeyo niyow marka sideedaba sharciyada hadda xitaa lecturada aan ka soo jeedinayay qaaradda Asia waxa ayaa ku jirayba sideedaba saddex category baa la ciyaaraha waa senior iyo junior iyo youth waxa la yiraahdo ka bacdi marka hadda waxaanu go'aaminaynaa inaynu magaranaysaa wixii youth ka sii hooseeya youth waxa weeye waa wixii 18 ka hooseeya weey marka inaan wixii 16 iyo 5 iyo 13 iyo 12 inaan muxuu ciyaaraha ku soo galino ilaa 10 jirka aan ku soo ababino oo yaanu muxuu haayay yaanu hadda istiraatiijiyada aan ka hadlaynay ee mustaqbalka soo socota bay ahaydba laakiin in dad garanaysaa loo diido horta qofka sidiisaba garoon qof u diida waxa weeye waa qof caafimaad u diiday dadku horta qofka saa u fahmaan ba fiican because waxa weeye garoonku waxa weeye qofkan de meel uu ku faahfaahaysanaya ma aha de kaafe ama ku cabayaan ama show center ma aha waa meel muxuu haayay marka uu yar yahay dhibic dhiida muxuu haay kaga imaanayso dhibicda dhiidkana waxa weeye waa dhibic dahab weeye qofka timiyo wuxuu caafimaadkiisa marka taas waxa weeye waa qodob weeye kale ciyaaraha sideedaba marka qawaaniinteeda laga hadlayo waxa soo galaysa marka ay imaka for example kalaabiyada marka la ciyaarayo waxa weeye waa gobolada kale kalaabku wuxuu xaq iyo gobolku uu xaq u leeyahay hortina ciyaar loo diiday waxaana laakiin wuxuusan xaq u lahayn 2 sano markuu ciyaaro buu u footeen karaa madaxnimada iyo muxuu ahaa ciyaaraha uu daasoo codkiisii uu ka dhiiban karaa laakiin ciyaartu waa galaya 2 sano qaanun dadku waxa weeye in la kala saaraa fiican ciyaarta la diidayo waa 2 sano waxa weeye uu ku jirayaa oo ciyaarihii uu wadanaya laakiin kooxdan kale wuxuu kaga duwan yahay foodka marka la qaadayo uu urta kaga duwan yahay ciyaaruhuna marka sidaas isku bedelaan waxa weeye marka la soo maro gobol la soo maro ba hadana loo gudbaa national team loo gudbaa markaas ciyaar waa farbaday sida marka anigoo kale alxamdulillah rabbil alamin oo ilaahay ugu mahadnaqaya waxa weeye wadanka qadar marka metelay marka hore kalaab baan ka soo bilaabay kalaabka marka soo bilaabay national team baan noqday national teamki marka waxa weeye qarankeeda metelaysa waxaan gaaray oo kale inaan noqdo 2 jeer aan metelo qaaradda Asia anigoona magac qadarna metelayn magacaygana aan metelayo qaaradda dhan Asia oo halka laabta lagu qorayo qaaradda Asia marka taas waxa weeye taasna waxa lagu soo xushaayo oo kale waa inuu qofkaasi noqdo ciyaartooyga Asia uu noqdo ka bacdi ciyaarahaasna waxa la qabtaa waxa la yiraahdaa muxuu ahay World Cup la yiraahdaa 4 sanaba mar baa la qabtaa marka waxaan orda goobta ka qayb galay World Cup-ka wuxuu ahaa kaasi 2002 kii labaadna waxa ka qayb galay 2006 midna waxa lagu qabanayay Madrid midna waxa lagu qabanayay Athena oo Greek lagu qabanayay labadaba anigu maan metelay wadanka xitaa aan metelayay aan garasa dhalashiisan ka haystay ama aan u ciyaarayay aan baladaha u keenay midna ma metelayn waxaan metelayay qaaradda dhan Asia because markuu qofku waxa weeye marka steptan aan ku sheegay waxa weeye darajka weeyaano jaran la fuulayo weeyaan qofku ciyaaraha saas loo maraa inagu waxa laga yaabaa in ciyaaraha magaranaysa imika fursad dadka bulshada Soomaalidu ciyaaraha si kale u taqaan waxa weeye inkastoo in badan aan doonayo jecelahay inaan Soomaalidan ku waaniyo in ciyaaraha sportska ay dhex galaan runtii ciyaar tababaryaal badan baa horta inta qaramada aan ku soo jiray aan soo wada marnay oo kamid yahay Cabdi Bile jaamac Karaacin baa kamid ah Ibrahim Aadan baa kamid ah soo tababar soo noqday tababaryaashaas waxa weeye waan intaas waxa weeye wadamo kale oo shisheeye baan inta iyadoo magaranaysa anagoo iyaan isku imaan jirnay inta iyadoo anagu muxuu ahay kooxaha wadamo shisheeye haysana oo wadana ka bacdi marka waxa weeye waan aniga hadda muxuu ahay anigu magaranaysa aan uga soo gudbay technical director ku macnaheedu waxa weeye qofka qiimeynaya tababaryaasha maadaama khibrad u leeyahay waxaan muddo badan kula soo jiray inaan saar ku qiimeeyo marka horta ciyaaruhu horta istabtaas leeyihiin macallimiintu istabtaas leedahay
tan kale ciyaaruhuna waxay leedahay istabtaas oo qofku wuxuu soo maraa gobol markaasuu haddana muxuu ahaye usoo tartama qarankii kabacdi markaa saas usii wadaa ta kale markaa shuruucda marka la dhigayo tana iminka muxuu ahaye sida hadalka igu soo gaaraya ay tahay in maamulo ama dee magaranaysa ama kooxo baa loo diiday ciyaaro inay ka qayb galaan shuruucdaasi horta waxa wey wayna waafaqsan tahay shuruucda adduunweynaha iyo istaraatiijiyada adduunweynaha iyo qawaaniinta iyo sharciyada horta wayna waafaqsan tahay markaasuu dee magaranaysa ayaa isla geen karaa haddii marka ay tahay championshipka ay noqonayso oo kale oo de markaa leeyahay waa championship markaa qualification bay leedahay marka waa in la tix raacaa marka imika kooxaha kale ee kasoo qayb galaya ciyaarahan gobolada miyay kasoo qayb galeen ciyaaro gooni ah oo ayagu soo reebreebeen oo markaa laga soo xushay oo de magarasa markaa teamkii laga soo saaray markaa matalayay marka waxa weeye taas markii aan sii tix raacayna ma arag wax qodoba oo de magarasa ayagu dhexdoodii magarasa in magarasa halkaa la aadayo because ciyaar walba waxay leedahay iminka olympiga wuxuu leeyahay qualification gooniyo leeyahay world champion qualification gooniyo leeyahay muxuu ahayd lagu tago marka macnaheedu waxa weeye wax walba waxay leeyihiin qawaaniin iyo shuruuc lagu aado markaa meeshaas marka tan haddii marka la leeyahay waxa weeye qawaaniintaas waa inay magaranaysaa ayagu marka hore iska soo dhex qabsadaan oo de iska soo dhexdooda liigo dhexdooda baa laga soo xulnay taas marka wayna ku qornaataa rosanaamada waxa la yiraahdo ee calendarka ku qornaataa iyo shuruud faniya waxa la yiraahdo oo shuruudda marka meesha taala markaas qofku uu ka eegan karaa wixii de magaranaysaa qawaaniinta ku qabanaysa marka tan in loo diido sports ciyaar baa la qabanaya adduunyuhu ma ogola oo qofka mar hadii uu de waxyaalahan safety-ga oo de qofku ciyaartoy ku ciyaarayo kale ama dhamaystirka ciyaarta oo qofka kooxda laga dalbay 12 ciyaartoy ama laga dalbaday 5 ciyaartoy ama whatever uu yahay garoonkaasi uunba de qawaaniintaas baa urta qaban karta oo de mar hadii magaranaysa ciyaartu aysan ahayn ama championship aysan ahayn ama aysan ahayn muxuu wax de kooxda qaranka la matalayay laakiin mar hadii qofku organization samaysto uu ka qayb gali kara ciyaar walba yani marka waxa weeye sida hadalkii ugu soo gaarayna dadkan iminka qaararka loo diidaya waa organization ba samaysteen iminka ay ku leeyihiin waanu haysanaa oo de kooxeedu waa sidan sharcigaasaan ku dhaqanaa tababarahaygu waa noocaas sidaasaan ugu soo qaybgalay marka waxa weeye sharciyada adduunku yaala meel kasta noqota wadamo badan baan muxuu haayayaan la soo shaqeeyay oo de magaranaysa hormaray oo de aan hadda la shaqeeyaa marka waxa weeye sharciyada adduunku u degan waxa weeye horta inaan qof ciyaar loogu diidi karin oo de ay khusaysa ciyaarahaas bashay maanaya cabdiraxmaan salaaman aad baad mahadsan tahay marka waxaad leedahay koox baa loo diiday inay ka qayb galaan ciyaaraha gobolada ama champion manama carabaabi kartaa qodada waa nacam waxa weeye anigu run ahaantii wasaan horeba kuu sheegay siyaasi ma laakiin kooxda daan carabaabo kooxda la yiraahdo Khaatume State of Somalia run ahaantii waxa weeye waan sii tixraacay oo de waxa qofku waxa weeye inuu wixii markiiba iska qaata maaha maadaama aan sharciga aan ciyaaraha aan aqaano inaan waxyaalahan barta looga reebay iyo waxyaalaha magarasa ku reebi kara inaan eego waxaan marka inay waxa ii soo cadaatay inay organization leeyihiin oo nidaam iyo coach iyo nidaamka lagu ciyaari intaba ay leeyihiin marka waxaan u arkaa run ahaantii in laga gardaran yahay lagana qaldan yahay laga reebo ciyaarta laga reebo sababtoo ah ma khusayso maamul iyo waxa weeye nidaam u khusayso ciyaaraha waxa weeye waa organization waxa weeye waa wasaaradda sports weeye maadaama meeshuna ay xaafadaas kaliya xitaa wasaaradda sports ay kala wuxuu qofkaas ciyaartooygaas waxay xaq u leeyihiin inaan magaranaysa garoonka loo diidin marka maadaama lagu gaaray in garoonka la diido inaguna aan la dagaalameynay qabiil aan la dagaalameynay fusuq aan la dagaalameynay daroogo aan la dagaalameynay cid walba aan la dagaalameynay inaynu magaranaysa marka waxaan ku kalifaynaa dhalinyaradaasi inay deesan aysan hormarin ay magaranaysa ay marka wixii aan ummadda kala dagaalameynay ummadda adduunyanaha u sheeganay inaan inagii aan u sababayno waxaan ugu sababaynaa garoonkii uu ku maaroobi lahaa oo waqtigiisa ku qaadan lahaa oo de waqti dadkii muxuu ahaay asaagii kula tartami lahaa inaynu ka reebnay oo aynu ku nirimay muxuu ahaay asaaga la tartami maysid orodoo qori qaado orodoo muxuu ahaay daroogo iibi orodoo fusuq samee marka waxa weeye waxyaalaha aan doonayna inaan bulshada ka waanino ba ilmihii meeshii aan caqligiisii maskaxiisii aan korin lahayn baan inagii baabiinaynaa
marka waxa weeye anigu waxaan hadalkayga aan muxuu ahaa mar walba aan leeyahay horena hadalka ugu soo dhuftay mar walba anigu dowladaha Soomaaliya yimaada waan taageersanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse iyo wasiirka sports labadii wasiir baan soo arkay muxuu ahaa khadiija iyo xamse ugu dambeeyayba inta badan si fiican baan muxuu ahaa xamar baan la joogay si fiican baan muxuu ahaa demokraansa wixii afkaar aan isku wadaarsanay ee ku khusaysa sportska marka waxaan leeyahay mas'uulin idinka mas'uulintii wadanka ah laakiin dhalinyaradaas waxa weeye wixii uu hadhow u geysto hadduu dhibaato u geysto idinkum baa u sabab noqonaya haddii uu wax dilo idinkaa sabab noqonaya haddii uu fusuq iyo muxuu ahaa kufsi u geysto hadda in badan Soomaaliya laga cabanayaba oo muxuu ahaa gabdhihi yaraa la kufsanayo waxa weeye meeshii uu isagii hamigiisii iyo future-kiisii mustaqbalkiisii uu ka baaran lahaa waadigan u diidayo marka waxay noqonaysaa inuu wixii aynu ummadda iyo bulshada kala dagaalameynay aynu u diidanayn inaynu dib ugu celino marka waxaan kala dardaarmayaa run ahaantii aan muxuu ahaay aan mas'uulintaas aan runtii aan muxuu ahaay aan jecelahay inaan garanaysa aniga madaxdeedana muwaadin Soomaaliyeed aan ahay anigu si kasta wadan aan ku matalo laakiin mar walba waxa weeye muwaadin Soomaaliyeed baan ahay adduunyahaasna waan ogyahay garanaysa mar walba waxa weeye anigu inaan mar walba Soomaali qofku waxa weeye jeesid uu qaadan karaa laakiin inuu wadanimadiisa iyo muxuu ahaay inuu filgaray ayaa muhiim ah ta kale sportsku marka ciyaartooygan marka muxuu ahaay muxuu filgaranaya in wadaniyadu filgaranaya waxaad dareemaysaa maalinta aad bilada qaadato oo calanka wadankaaga marka la saaro calanka la saaro muusiqa muxuu ahaay calankaaga la saaro baad dareemaysaa wadaniyadu horta waxay tahay wadan badan baan anaga loo soo saaray oo aan u soo metelnayba laakiin haddana aanu muwaadin anigoo wadamada metelay haddana muwaadin Soomaaliyeed baan ahay wax walba oo Soomaaliya lagu tarayo muxuu ahaay haddii aqoon noqoto iyo haddii garanaysa mar walba aan jecelahay marka dhalinyaradaas waxaan dhihi lahaa aynu uga faa'iideyno oo ayaan garoomada u diidin aan garoomada aynu ku soo dhahayno soo gala ee garoomada yaan u diidin waa labada shay aan isku diidaba waxa weeye waa masaajidka iyo garoonka qofka hadduu masaajidka iyo garoonka hadduu labadaba ku diido qof muxuu ahaay diintiina kala dagaalamay caafimaadkana kala dagaalamay marka waxa weeye labada shay ee bulshadu ay ku nooshahay waxa weeye waa diin iyo caafimaad labadaas inay ilaalino baan anigu run ahaantii ayaan dhihi lahaa mas'uuliyiinta dhihi lahaa insha Allah ta'ala qawaaniinta iyo shuruucda u degan oo aniga hadda aan ku fasiray oo kugu yiri ciyaaruhu sidaas ay horta u kala baxaan oo halkaas laga soo bilaabaa laba hadda adduunka hormaraya ayaa la doonaya in 12 jiradii inaan muxuu ahaay garoonka la keeno inaguna aan dhahayna muxuu ahaay ma diidi karta marka ilmi waxa carabtu waxay dhahdaa al-aql saliim fi jism saliim aqliga saliimka ah maskaxda saliimka ah waxay ku jirtaa jirka muxuu ahaay caafimaad qaba marka hadii sidee baan u baarnaa marka hadii maskaxdiiba ay tahay garanaysa aysan caafimaad qabin sidee baan u helaynaa marka jir caafimaad qaba jirka caafimaad qaba waxa uu kaga imanaya waa sports marka taas waxa weeye in lagu dadaalo ruuxantii sharciyada adduunku yaala ee garanaysa inaguna aan adduunyada xitaa hadda khudbadaha garanaysa inta aan wadanaan aan ku sheegay aan ka soo jeedinay ay kamid ahayd inaan muxuu ahaay garoonka la fasaxo garoonka ciyaaraha ummadda loo badiyo sida ay garanaysa ummaddu ay u jeclaato oo ciyaaruhu ummaddu ay garanaysa garoomada iyo caafimaadkooda u soo dhex galaan ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd wasaaradda ciyaaraha sportiga dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay qaatumana ka reebtay Puntlandna ka reebtay oo sidaad sheegtayna afri nin xanuunsan oo dhakhtarkiisii dawada hayo haddana dawada u diiday maxaad kula talin lahayd waa sidaad hadalka carabka ugu dhufatay horena aan ugu soo dhuftay waxaan u arkaa anigu nin xanuunsanaya qof xanuunsanaya oo duu dhakhtarka u yimi dhakhtarkiina uu dawada hayo oo koobka biyaha uu ku waraabin karo oo u diidayo marka wuxuu ahaay ka bacdi qofkaas muxuu ahaay halka caafimaad xumo halka uu dhintay taasina waxay sababaysaa adduunyada qofkaas inuu bini'aadnimadii ma hadiya kaliya kulma dagaalamay wuxuu la dagaalamay bini'aadnimadii jiritaankii basharka buu orta la dagaalamay marka waxaan ku soo koobaya waxay tahay wasaaradda sportska idinkoo raacaya shuruucda u taala caalamiga adduunka oo idinku aysan eegaynin qabiil iyo reer hebel midaba ay eegaynin sportska idinkoo raacaya tixgelinaya nidaamka u degan sportska iyo ciyaaraha u degan waxay dhigayaan dabcan idinkuna mas'uuliin baa tiin waxa weeye idinka bad garasa xaggaas laga yaaba inaad iga fiican tihiin ba oo dabcan nima mas'uuliin tiin waxa weeye hawsha ka warhaysan ba marka idinkoo eegaya qawaaniinta iyo shuruucda u degan adduun weynaha inay garasa dhalinyarada ay ciyaaraha kaga reebin
idinkoonan eegaynin qabiil iyo reer hebel iyo maamul iyo midnaba idinkoon eegaynin laakiin aad ka talisaan oo dantaada eegtaan bulshada danteeda baa ugu muhiimsan eegin idinkoona midnaba eegin maamul goboleed qabiil hebel midnaba eegin laakiin eega bulshada Soomaaliyeed danta bulshada Soomaaliyeed waxay ku jirto wax weey waniga ku tibaaxayo qawaaniinta adduunka iyo sharciyada adduunkaas ba inta baad mas'uuliyiintu ay garanayaan marka waxaan ka codsanayaa mas'uuliyiintaas wasaaradda sportska iyo mas'uuliyadda dawladda federaalka ba inaysan u eegin sportska maamul iyo reer hebel iyo qabiil sidana iyo qof ay haysan aad u eegtaan kaliya qofka xanuunsanaya waa dawada siinaysan waxaan aad ugu soo gunaanadayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan in badan aan garanaysan runaantii jecelaynaa kula taliyo kula waaniyo Soomaalidu sports waxa u taqaanaa waqti lumis imaka hadda qof weydiiso hebel waxa ka tagaysaa 2 saacadood baan waqtiga soo dilayay aad ku leeyahay adduunweynahana budgetka adduunka waa meelaha wasaaradaha ubika yahay ciyaaraha wasaaradda sports marka inay bulshada Soomaaliyeed aysan u arkin waqti lumis sportska ay u aragto meelaha anfac kari karto u shaqo karto imaka waxa laga helaa Mareykanka iyo wadamada hormarayba scholarship wax la yiraahdo adigu ciyaartooyba waxa lagu siinayaa tacliintaada iyo jaamacadeeda iyo ciyaartaada iyo garoonkiisa oo hadhow toona marka ka soo baxday adigoo shahaadada ciyaartaada sportskana wata shahaadada cilmigana aad wata inaad muxuu ahaay markaa ku shaqo tagayso xitaa aad kaga shaqeyn karayso markaas majaalkii sportska halifkiisa kaga shaqeyn karayso marka inaysan bulshada Soomaaliyeed aysan u arag waqti lumis aysan u arag ay tahay meel anfaca oo sida imika kulli dhalinyaradu inta ciyaaraha way daawataa Soomaaliya wadada sport jecel inta ciyaaraha way daawadaan marka meel tagtaba Soomaaliya baa ciyaar ku daawanaysa way la socdaan inta ciyaartooy inta la kala san inta bilyan la kala san maxaa gaarsiiyay dadka qiimo lahayn taas bilyan ma la kala san waa maya marka macnaheedu waxa weeye qiimaha ku jira waxa weeye waa taas weeye marka bulshada Soomaaliyeed waxaan in badan aan kula waaniyaa in badan kula taliyaa waqti lumisa ka dhigan inay ka dhigta wax uu haaye mustaqbala oo aad future ka gaari kartaan oo meel badan oo muxuu haaye haday noqoto maadi haday noqoto haday tacliin noqoto haday caafimaad noqoto intaba aad garanaysaa aad kaga faa'iideyso adduun iyo aakhiraba weeye sportska marka bulshada Soomaaliyeed in badan waa ku waayay haddana waxa weeye waa fariintada waa diraya inay kaga faa'iideystaan sportska inuu yahay meel wax anfacaya diintooda anfacaya caafimaadkooda anfacaya muxuu ahaay maadigooda anfacaya familkooda oo xitaa marka xitaa qoys aad family aad tahay uu ku anfacayo xitaa adigoo maskaxdaada muxuu ahaay dhiigi circulation dhiiga ku dhaaqay qofku markuu iska fadhiyo uu san muxuu ahaay sport sameyn dhiigi waa fadhiyaa marka adigoo dhiigaaga uu socdo oo dhiigaaga shaqeynayo marka muxuu ahaay oo caadi aad tahay reerka xitaa si fiican u maamulo karaysaa ta kale xitaa marka dadka xitaa xafiisyada jooga waxaan kula talinayaa inay sportska sameeyaan sababta fadhigan badan ee xitaa xafiiska la fadhiya waxa weeye maskaxdaadu fikir badan waxay keenaysaa markuu dhiigaaga shaqeynayo laakiin dhiigaaga haduu fadhiyo ma keenayso muxuu ahaay maskaxdaadu fikir badan keenayso marka dhiiggan aad shaqeysanaysaa sportskan aad qabanaysaa waxay dawo u tahay xitaa qofka xitaa aan sports ahayn xitaa marka xafiis jooga ama meel jooga inuu magarasa xitaa fikir iyo efficient badan yeesho iyo afkaar badan uu keeno marka maskaxiisa ku jirin maadaama uu dhiigiisii wixii shaqeynaya ku maasantii daawashada barnaamijka gaarka ee waraysiga la yeelanayay Cabdiraxmaan Saleebaan oo ah ciyaartooy hore kana soo qayb qaatay ciyaarihii adduunka ee Asia isagoo matalay qaaradda Asia waddanka Qatarna u ciyaaray halkaas oo isuu ka soo jeedo waana muwaadin Soomaaliyeed oo ka bidiiday qaabka ciyaartooyda Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka Khartoum loola dhaqmo ciyaaraha looga reebay isagoo faa'iido weyn ka soo jeediyay barnaamijka ciddii ka faa'iidaystay way ku maasantahay daawashada waa Cabdirasaaq Shabcaan oo idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeeda kale waana ku maasantii daawashada salaamu alaykum